Sirdoonka Jamhuuriyadda Somalilan ayaa fashiliyay shabakad isku xidhnayd oo sirdoonka Soomaaliya ah oo beegsanaysay haldoorka gobolka Awdal, macnaha rabtay inay layso oo dilal qorshaysan ku disho siyaasiyiinta waaweyn ee gobolka, khaasatan kuwa Somalilan ka soo horjeeda si ay isugu dhacaan Somalilan iyo gobolka Awdal. nimanka waaweyn baa la rabaa in la beegsado, dilal qorshaysanna lagu laayo. Sirdoonka Somaliland baa fashiliyay, soo bandhigay cadaymihii, keenay baasaboorradii, hubkii, wixii oo dhan ee halkaa ka dhacay. Haddaba taa ka sokow maxaa la gudboon sirdoonka Somaliland inuu xuduudahan dhaafo Somaliland dhexdeeda oo isna uu duulo? Mid baan ka odhan doonaa. Waxaa jira kuwo kaloo iyaguna burco lagu qabtay sirdoonka Somaliland oo si fiican u shaqeynaya, laakiin aan rabno inuu intan ka sii bato, xuduudahana dhaafo. Barnaamijka share gare, la wadaaga asxaabtaada, kuna soo biir baraheena bulsho. shalayto sida uu baafiyey shabakad barta Twitter-ka ay ku leeyihiin ama X sirdoonka Somaliland ayaa loo soo gaabiyo NIA ama NIA, waxay lagu soo qoray dilal qorshaysan oo la rabay in Boorama haldoorkeeda lagu laayo oo la fashiliyay shabakad aad u weyn oo arrintaasi ah. Sidoo kale iyagoo kaliya kuma jiraane dowladda Jabuuti sirdoonkeeda isna qayb ka ah oo caawinaya oo ka mid ah oo shahaadad fara badan soo xiranay. Haddaba maxay sababtu, maxaa keenay, sidee bay wax u socdaan, dadka reer Somaliland goormay wax fahmi doonaan, reer Awdal ma ku baraarugsan yihiin? Waxaasoo dhan baan doonaynaa inaan ka hadalno. waxaa lagu qabtay Maslax Ismaaciil Xarbi oo baasaboorkiisu Soomaali yahay oo wiil dhalinyaro ah, 20 jira, ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boorame, isaga iyo baasaboorkiisa iyo taleefanadiisa iyo wixiisii oo dhan. Waxay isticmaalayeen mobilka tooyada, bastooladay haysteen, qalab oo dhan bay haysteen. barnaamijkaasi ayay qorsheynayeen. sidoo kale waxaa magaalada Burco dhawaanta lagu qabtay sida wiil kale oo armiga ciidanka ee Soomaaliya ka mid ah. Haddaba maxaa soo galay, waa sidee wax u socdaan? Boorame waxaa lala rabaa sidii ku dhacday Laascaanood oo kale in madax jabin la sameeyo, dilal qorshaysan la sameeyo, la laayo haldoorka Somaliland. 100 jeer waxaan bartaydan ka idina sheegay in rag la laynayo laguna socdo, sirdoonkuna inay baraarugsanaadaan, Somaliland oo dhan inay baraarugsanaato oo lagu dhex jiro ragga la taargeeysanayo. Waxaa ka mid ah Maxamed Abiib, waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Ina Muumin Saad, waxaa ka mid ah odayga Sheekh Daxeeye la yiraahdo, waxaa ka mid ah niman badan oo mucaaridka oo baarlamaanka ku jira oo salaadiin leh oo ugaasiye leh oo niman fara badan baa ka mid ah. waxaana la rabaa in la isku dhufto Somaliland oo marka la dilo nin haldoora haddana ku kala haldoola, iyagu dilalka markiiba toos uma geysanayaan. sirdoonka Jabuuti iyo sirdoonkan marka lacagta la bixiyo kharashaad fara badan baa lagu bixinaya. waxa la isku dayayaa in dadka reer Boorama la isticmaalo, dhalinyaro bilaa camal iyo kuwo maskaxdooda lagu guurayo, kuwo la yiraahdo waxba la idinka xoreynaya, wax noocaasa. deedna la yiraahdo barnaamijkaasi uu u kaco, dadkaaga u kacaan waa in hebel la dilo. hebel marka la dilo ayay reer hebel kacayaan. marka tusaale aan ku siiyo, Axmed Muumin Saad baa tusaale aan habeenimo la dilay, Ilaahay kama yeele. kadib ciddi sheeg la garan waayay, markii waxa la odhanaya waa sidii la reer Laascaanood Somaliland baa haldoorkeega laynaysa. miidiyihii intan odhan lahaana waa la qorsheeyay, waxa lacaga lagu shubay miidiyaha ka baxsan Somaliland inay isticmaalaan, miidiyaha kale gudahana uu yiraahdo maxaa loo qaban waayay sidii Laascaanood buunbuuniyo, arrintiina sidaasi loo kiciyo reer Boorame. sirdoonka Jabuuti taa isagoo qorsheynaya ayuu dhinacna wuxuu ka wadaa in dadka reer Awdal laga qorto askar fara badan oo lagu daro ciidanka geesidiir meesha la yiraahdo lagu soo tababarayo oo ilaa 1500 oo ciisi ay ku jiraan, inta kalena la rabo in imka lagu daro reer Boorame. hagaag halka markay xaaladdu marayso, waxa la rabaa in xoog iyo xoolaba la isugu daro sidii loo kicin lahaa. haddaba maxaa sirdoonka Somaliland la gudbay? sirdoonka Somaliland wuxuu kaashanayaa imka sirdoonka Ethiopia maadaama Boorame tahay magaalo xuduudeed, goob aad u halis ah oo istiraatiijiga way Jabuuti dhinacan bay ka kulaalaysaa, Diridhaba iyo Jigjigana
sidaa ugama foga sidoo kale Hargeysa Wajaale Gabiley eeriyadana way la gudboon tahay waa goob khatar haddii la kiciyo saameynaysa ilaa 3 wadan haddaba si taasi looga badbaado sirdoonka Somaliland aanu talaan soo jeedinaya 100 jeer oo kalena waa ku canaantay sirdoonka Somaliland maaha in ay fadhiyaan maaha in ay shaqo fiican bay hayaan hawlay ugaarsanayaan adduunka waxa loo kala qaybiyaa sirdoonka arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha su'aalahan Mareykan oo kale FBI waxay isticmaashaa wixii wadanka security-ga wadanka waxyaabahaasi qofka dabagalkiisa cad wax kasta oo wadanka ka dhacaya CIA-duna waxay isticmaashaa wixii arrimaha dibadda wadamada ku horumaray sirdoonka waxa kamid ah Pakistan waxa kamid ah Turkiga oo kale ay fiican yihiin Yahuuda Iran yani wadamada sirdoonadu tayada leeyihiin hadii jeer waxay isticmaalaan sirdoonka dibadda ayaa aad ugu wanaagsan waana wax la barto oo waxay Somaliland waxay fiican horta in dad basaasiina la soo tababaro dibadda loo tababaro jaamacada loo galo mar labaadna waxaan leeyahay dadka reer Somaliland horta mid iska ilaaliya in aad tiraahdaan ammaankayga hal la ilaaliyo dibadda iyo gudaha magaciisa sirdoonka iyo qofkiina in lagu caayo oo imika tusaalahan qof sirdoon hadii dadkeenu arkaan gabigiisa waa la faquuqaa waa la cusriyadeeyaa waxa laga dhigaa sirdoon oo wax qaaraya xanta laga qarsadaa ma ogsoonid qiimaha adduunka ugu fadhiyo qofka sirdoonka qaali weey mar hadduu saakooto sakaarkiisa meel kasta waa inaad ka degto awood buu wax kasta u leeyahay marka waa in la tayeeyo sirdoon aan inta yar intuu ku meermeeraysta maalinba qof qaylay iska soo qabsanay maalinba mid Facebook ku qoray waxaan u baahanahay sirdoon ka baxa xuduudaha oo Djibouti kala oo Djibouti soo dhex fadhiista oo meesha ciidan jooga dirta oo meesha Somaliland lagaga hadlayo lagu hadalhayo taga oo meel kasta sidaa sirdoon aynu u baahanahay meeshan huwantan iyo balaayadan iyo khawaarijta iyo waxaan dhex socda in la dhex galo oo gudaha loo galo oo waxa laga hadlayo wixii danta Somaliland oo kaliya laga shaqeeyo Puntland taga maamul goboleed kasta taga Soomaaliya oo dhan taga baarlamaanka dhex gala cid kasta dhex taga danta Somaliland meel walba u bana taasay sirdoonku waa waxyaabaha saadaaliyo wadanku qiimuhu leeyahay sidoo eegyahay dhiga soo gura ma aragtay xogaha wadamada kale dhaqaalaha iyo waxyaabaha ku fiicantay madaxweynuhu sirdoonka ayuu dhageystaa wax ka maqlaa waxa la daba loo baahan sirdoonka Somaliland inuu intan ka balaanaado xuduudahana ka talaabo halka lagaaga soo maleegaya suugiina intay nisa oo ilaahay baan ku dhaarshay 3 kiiloomitir xukunta oo iyadii khawaarij iyo balaayi ka dhawada dhex buuxdo inta ay kugu soo duulayso iyo Djibouti oo ilaahay baan ku dhaartay gobolka dhan wadanka dhan burca ka tira badan tahay ayaa maanta waxa lagu leeyahay sirdoonka Djibouti iyo sirdoonka Soomaaliya ceeb bay inagu tahay waxa loo baahay Somaliland in xuduudaha ka baxdo inay shaqadooda qabsadaan oo budget iyo maaliyad iyo miisaaniyad loogu daro sirdoonka qaranka dibaddana loo baxo wax weyn laga soo barto barnaamijka sheer gareeya cadawga Jamhuuriyadda Somaliland ha dhaco aad iyo aad baan ku salaam